haddaan qiso yar idiin sheego ninbaa maraykanka ninbaa ii warramaya maraykanka yimid wuxuu igu yidhi maalin baa waxaa dhacday anuu salaad tukanayo masaajid soo taahay oo salaad ku jira ayaa waxay igu soo xidhay buu yidhi ninku waa caddaan buu yidhi ninka jidhkiisa dhan waxbaa ku sawiran salaaddii waan ku jiraa ninkan gadaal igaga soo xidhay salaada yaan yara milixsaday buu markaasaa waxaan arkay buu jidhkiisa oo dhan wada doorsoon markaasaa waxaan is yidhi wallahi kuwani kani malaha gaangiskii wax dili jiray weeye malaha inuu ku diluu rabaa salaaddii wuxuu yidhi waswaas baan ku dhammaystay iyo baqdin salaaddii markaan ka baxay ninkii si caadi uu ila tukaday salaaddii uu ka baxay markaan ka baxano bannaanka u baxnay masaajidkaan weydiiyey buuri wareedha nin muslim aad u eg tahay maxay tahay waxaan ninkii wuxuu yidhi gaal baan ahaan jiray gabadh soomaali ah ayaan saaxiib la ahaa buuri anoo gaal ah gabadha marka wuxuu yidhi iyada lafteedu ma fiicnayn qashinka iyo khamrada iyo tumashada iyo waxaanaan saaxiib ku ahayn gabadhii sidaanu saa ula soconay saaxiib u ahay ayaan maalinkii dambe waxaan idhi buu yidhi aan ku guursado markaasaa waxay tidhi gaal baa tahay oo ima geydin gaal baa tahay oo ima guursan karti saaxiibnimadiina way ogoshahay guurna ma ogol macnaa iimaan baa ku jira sooma caasiyad ba ha ahaatee laakiin iimaan baa ku jira waxay tidhi ima geydid oo ima guursan karti ayib seen kugu guursadaa soo islaam bay tidhi waayahay buu yidhi ikaxeeyo ciddii islaami lahayd ii gee way soo kaxaysay bay tidhi wadaad buu ii keentay wadaadkii baa ii islaamiyey markuu islaamiyey baan diintii marka sii baadhay buuri waxbaan sii akhriyey waan sii akhriyey diintii baan ogaaday buuri xaqiiqadeeda waan fiicnaaday khamradii baan ka baxay sinadii baan ka baxay qashinkii baan ka baxay gabadhii saaxiibnimadeedii waan gooyey waan hagaagay buuri waa adiga ay arkahay buuri masaajidkaasaan joogaa waa cibaadaystaa waan fiicnahay laakiin waxaa dhacday buuri anoo fiicnaaday oo wadaad noqday oo diintii ku hagaagay ayaan gabadhii oo weli sidii ah yaan u tegay buuri waxaan idhi buuri naa sidani diintaad igelisay ma ahe ka soo baxa diintaad ii sheegtay een galay iyo waxaad haysa isma lehee waxaan ka soo baxay aan isguursanay gabadhii wixii bay ka soo baxday buuri waan guursaday buuri way xijaabatay iyadoo fiican oo toosan iyo hadda xaas ii tahay buuri carruurna ii dhashay labadooda soo la yaab ma leh tani iyada oo khariban bay soo islaamisay iyadana isagii ay islaamisay baa soo hagaajiyey oo ilaahay sabab uga dhigay soo baa waxaa laga yaabaa gabadhaas meesha ilaahay hagaaggeeda ka bilaabay inay ahayd nin gaala inuu guursado markay diiday halkaasaa furuhuba ka bilowday soo maaritaan furuhu wuxuu ka bilowday gaal baa tahay ima guursan kartid isaga inuu hagaagana qodobkaasaa sabab u ahaa iyadu inay hagaagtana isla qodobkaasaa sabab u ahaa waa meeshay markay yidhaahdaan ruuxa muslimkaa si kasta uu caasi u yahay iimaanka ku jiraayo ma sahlana lama sahlano marka yani waxa weeye waxaan ku keenay sawirrada jidka lagu sameeyo mar baan waxba laga qaban karin waxaan ku yidhi buu yidhi war sawirkan maadaama aad islaamtay maad iska goysid wuxuu yidhi lacag aad u fara badan buu ikalifayaa mana haysto sidaas daraaddeed sidaasaan isaga tukanayaa goortii ilaahay waxay siiyana waan samayn laakiin hadda waan iska cibaadaysanaya wallahu aclam